ورحمة الله تعالى وبركاته. خبر عاجل وورد دقدق مقالة مقدشو oo lagu qabtay koox abni daro abaabulaysa oo hogaaminayo Saciid Hulumbe Seedigi nin Axmed Hurre la yiraahdo iyo koox la socotay oo hadda gacanta lagu dhigay hoteelka loogu daatay ninkaas wuxuu siday hub iyo lacag waagaas haduu bariyo magaalada Muqdisho waxa la rabay makaan baabay in laga dhigo waxaad ogtiin ummadii Soomaaliyeed subaxa saaka in loo balansanaa baarlamaanka in la isugu yimaado 14 qodob ee waxa weeye baarlamaanka la geeyay in ama la meel mariyo ama la diido laakiin baarlamaanka la isugu tago ninkan marka sawirkiisa aad arkaysaan Axmed Hurre liyada waa Saciid Hulumbe Seedigi wuxuu la dhashay naagta Saciid Hulumbe qabo walaalkeed weeye ninkani wuxuu ka mid yahay team Fayris wuxuu ka mid yahay dadka ragaadiyay oo baabi'iyay haday ciidan tahay iyo haday shacab tahay iyo haday dagaan tahay iyo haday dhaqaale tahay iyo haday dhul tahay dadka ragaadiyay oo baabi'iyay maamulkii Puntland la oran jiray iyo deegaanada Puntland dadka ka dhigay makaan baaba'ay uu kookay waa gacantiisa koobaad waa xogayihiisa waa ninkii wax kale iska daayay budgetkii iyo isbeesadii ciidanka loogu tala galay biilkii ciidanka eegay xilligii dagaalka lagu jiray ninkii cunay way waa ninkii Puntland baabi'iyay magaalada Qardho iyo magaalada Boosaaso mashruuc kasto Saciid Hulumbe uu leeyahay waa ninka gacanta ku haya waa Seedigi wuxuu la dhashay gabadha Saciid Hulumbe qabo waxaan maqli jiray liq waa baxta caawu hadaba bad galay Muqdisho tagay wuxuu haystaa meeshii Seedigi lugta ku walaaqayay ee waxa weeye Puntland ee sidoo doona ka yeerayay ee dadka masaakiinta ah ninkaas wax kale iska daayay islaamiga caanaha gadi jiray ee magaalada Qardho deganaa eegay xaafadda Qoryacad iyo Kaamba dhexdooda wada marta islaama caana diiqa baa fariisan jiro caanaha ku iibiya xitaa ninkii islaamaha intuu raafay shirkad caanaha keensaday eegay waa Saciid Hulumbe shirkad caanaha intuu keensaday isaga agaasimo uga dhigay way arab inta dhar leeg bulay meeshan xiiraba Allahu xiin mari Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba maanta wuxuu ka qabtay ummadii reer Puntland iyo dadkii Muqdisho ku noolaa iyo qarannimadii iyo gobonnimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed Ilaahay ba maanta waxa weey awad khayr qaba u keenay ka hadii laga qabtay Ilaahay ba horta dadka reer Puntland la baxsaday keligii maaha waa 7 nin oo seediyadiisa iyo 7 uu dhalay iyo 7 uu adeer u yahay 16 kaas iyo isaga ayaa Puntland shaqah waxay noqotay Puntland company waxa weeye Saciid Hulumbe iyo seediyadii iyo ilmaadeeradii ciyaalku adeerka u yahay eleeyeen hadaba maxaa dhacay barorta baxaysan maqlaysan waxa la qabtay tuug nahaab ah oo argagixisa ah oo doonayay subaxa waagu markuu bariyo magaalada Muqdisho in lagu kala baxo lacag 500,000 dollar ayuu soo qaatay hubkii iyo rasaastii Saciid Hulumbe Puntland kala tagay annagoo leh Xasan Sheekh oo warninka hubka u fasaxin war hayeelin war ha qaadan biyo ariya iska daay heemaraan ceeboobe waa ceebowd hareeraha laga galay Xasan Sheekh waa ceebowday wax dawladda diidan tahay buuq baa lagu furay soo gal buu yiri diyaaradii hubka ahayd Saciid Hulumbe uu la galay magaalada Muqdisho kala baro bad ayuu kaga yimi seedigiisu diray Axmed Hurre liyada waa ninkan Asad Ismaan Diyaano taliyaha ciidanka booliska amniga qaranka Soomaaliyeed eegay iyo ciidanka amniga waxa weeye booliska Soomaaliyeed baa u daatay naasaha inta laga garaacay isaga iyo wixii la socday waa la duubay sida loo bahdilay iyo sida loo qabtay iyo waxay damacsanaayeen baan rabaa inay isdul taago barnaamijka dug soo gaarsiin shirkaray hadii salaad ku joogtana u soo tukubadayna gaadhiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ala sayyidina Muhammad Hulumbe wuxuu soo diray ninkan beerka weyn wuxuu yiri Muqdisho tag lacag baan ka soo daba diraya hubkii iyo rasaastii aan Muqdisho kaga yimina waa inay hawl gashaa lacagtaasna waa inaad cid alaaliye cidii calool shaqaysta ah ee waxa weeye qarannimada iyo midnimada iyo gobonnimada ka soo horjeeda eegay sababta Xasan Sheekh waa iga adkaaday sharci ahaanna waa iga adkaaday dadkii reer Puntland garabkay ka baxeen xildhibaanadii waa iga yaaceen wasiiradii waa iga yaaceen magicii Daarood Ismaaciil aan xoqanayay waa ii shaqayn waayay meesha ugu dambeysay baan marayaa subaxa waaga haduu bariyo Muqdisho waa inay olashaa
وإن دجال كدعة وتشدد نكن الله صدري أنت سهل وأنا أجاسمي سكوبات وقعنتي سنبدق وقسنتيه سا وأنك حارانتا يلعقت ضدك مساكين تا رير بطلان كباهيني كقاچوني يعني أبارتا يرفاتك يجيريدا يدمشدا يومبسك ضدك الصوماليات رير بطلان هيستا إلهينا واركا أمديسنا واركتا ضدك ما أنت الصومالي حبا أمك هلا قرصونا قروي دولاتك قروي ضدك يحوري ترب وقول مانيان والله آموسي تليه أسد آدي بنكو سلامي أسد تليها عيدا كبوليس كالصوماليات تليه أسد عثمان لانديرة دلي ومقع يجي يشرف كيجي يكرامدي ومدى الصوماليات بإلالية باتا والله آموسي مقدوشو كسو دقي بنجي بو تقي شان بقولوا كنبو سوقاتي إساقو هوبكي لعاقتي قيمين إياه إيجي باوتيلك اللوغو دات يا وحبا اللي دي شيء هوتيل بقى لوغو ديباتيه ولا أفضل وح أفضل لي هذا ماتش تاني كان مجرم بوها magaalada muqdisho u socday muqdisho inay gubato buu rabay sababtoo ah Saciid Hulumbe waa oglahay Saciid Hulumbe waa laga adkaaday Saciid Hulumbe Xasan Sheekh Maxamuud waa ka adkaaday baladeegi magacii daarood iyo magacii harti iyo qabyaaladii uu waday wax walba uu shaqeyn way lacag waa u shaqeyn weyday xildhibaanadii uu shalay isagoo kolay ku qaatay baa ka yaacay afar qof baa u tagay oo waxa weeye garow ka dhaxooyay hadeer qaar baan arkay kii gudoomiyaha gobolka aan jiray abwaan والله بالله تالله ما وحار شبتي اللي وها الله يسمع وحار شبتي مقدشنا وحكاها باقوري عيالك حافظة كقصو عاد بدنا عيالك حافظة عيال حمرك عيالك حافظة عيال قرديق عيال كاران باكا شرف يسمع عاد بدنا مدحتوية دا يبارما كدحسة مقلود بوها كيو حنركي حلي انت صل حاجة نلكو بايع شان بقولكم قاتبان لين قارب بروفة قاتبان حبا كما جيران أفر قف باو تقي intii kale ee daarood Ismaaciil xildhibaanadoodii iyo xildhibaanadii ummadda Soomaaliyeed oo dhan muqdisho xaadir ku wadeeyay sida darteed wuxuu yiri muqdisho bari markuu waagu bariyo waa in kabtaydii meeda ay ka dhacdaa waxaad ogtiin oo barnaamijyada ku horeeyay idinku soo gudbiyay iyadoo leeyahay daarood baa loo gaarsanaya baarlamaankii baa naloo diiday diyaaradii baa nala ku qabsaday waxa aad arkaysaan wallaahi bilaahi talaahi waa buuqsamays waa daarood kicin waa qabyaalad cid loo shaqeynayay ee waxa weeye loo rareeyayna waa Saciid Hulumbe dan daarood Ismaaciil baan jirin dan Soomaaliyeed baan jirin dan hartiyeed baan jirin wax allaale iyo wax loo socdo oo aan ka ahayn Saciid Hulumbe wallaahi bilaahi talaahi baan u jirin laakiin liq waa baa xigta kadabkoodii hadaba saaku go'ay gacanta lagu seediyay weeye gacanta lagu dhigay isagoo hub iyo ciidan iyo waxa weeye lacag qaybinayo oo raba muqdisho inuu qarxiyo muqdisho waagu markuu bariyo baarlamaanka hortiisa xabadi ka dhacdo halka markii dhowr nin ku dhintaan liyada hadhow niman daarood halka lagu leeyay ujeedada loo socday wax kale ma ahayn waagaas haduu bariyo in xabadi meesha ka dhacdo iyo laba inta ku dhintaan liyado niman hartiyo daarooda meesha lagu leeyay Xasan Sheekh waa Hulumbe intuu soo fariisto اللي وقربت كاس بالعقل جاي أفكار أقول كسيدايو ويا محن يدي شيء محن يدي لها صوت مش ور نلقيه شالي بوحو كدادعي غير بطلان فرماتش إنه عدوي هاي مركز هو عاموسين برهاد إنتو سو يستاجل فرماتش هو عدو نكر دارود معها هوية وضاعتها انت هنقول تجي وحكوري هوية وكوسو ضاعتنيا مركز يمانه هوية يسو ضاعتن كلا وحكي لي إسكت داي بين أبور بونك هكسميه بين أبور markaasuu intuu soo waxay wuxuu yiri ma nimanka lahayd idaniga waa ku soo daadanaya aniga farmaajo liyada ma hawiya lahayd taqaday ka soo daadanaya waxa aniga nala soo istaagay weeyo aan ka dhigeysanay maantana wuxuu rabaa fidmo iyo fadqalalo iyo dhibaato ummadda Soomaaliyeed waxa weeye ay ka raysatay isaga dartii in reerka daarood la yiraahdo iyo reer harti la yiraahdo ay u dagaal galaan wallaahi dagaal gali mayno oo billaahi gali mayno oo tallaahi gali mayno oo inaan hawiyo waxba naga haysan oo aan hawiyo waxba isu qabin waxa aad ka sheekaytay musiibadii aad Puntland la joogtay ee ummadda reer Puntland ku baabi'isay ee noloshoodu waxa weeye zero kaga dhigtay ayaa doonaysay inaad muqdisho la gasho waxaas ilaahay ma hadiisa kan maanta ku qabtayna inuu reer Puntland yahay ciidanka meesha mariyay ee ninka u daatay dhammaantood waxay ahaayeen ciidan reer Puntland ah wixii ciidan meesha mariyay ciidan reer Puntland baa ahayn qof taraxay ma jiro waa kan hotelku loogu dhacay
lacagtiina gacantaa lagu dhigay hubkiina gacantaa lagu dhigay isagiina sheela moorta la geliyay isaga iyo wixii la socday waana ku hambalyeynaya taliyaha ciidanka booliska Asad Cismaan Diyaano shaqo fiican baad qabatay eegay daalinkii ilaahay ka furtay ee reer Puntland baabi'iyay ee maanta doonayay Muqdisho magaceena iyo magaca ummadda Soomaaliyeed iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed gad madow ku rido guuleysan ku leena Asad Cismaan Diyaano ninka darajo haday u hadhay حسن شيخو درجة صباح ساكا أنت واحد صباح ساكا وين أروح وين أكون حلا آخر بربرت اللي دقيست وأنا راح صوت تاي وأنا راح قبصة عيدم بار قرية أنا راح قبض هالويل أو قبل كذا كسو تشيدا عيدا كأكون متشين عيدا كسو تشيدا غير دجانا ذا بوتلان عيدا كقرن الصومالية ده أبني أمة الصومالية إلى عليا تلاقيها عيدا كبورس كأسد اسمه ديالو صاع أمري تو جان هاب كإيمان لاوها إلا قفته شرعي بهدوانا لقفته ما تهوتيل كلو قبطي قبل على سكوس ورسين يا عيال ها قرق واسسني وهبل بلا لبحي هبل انت الله لبحو وولي با شيل laga dhigo waa naasaha laga garaacay waa hotelka lagu qabtay ma ahmed kaliya gul iyo gobonimo ka dhacday si fiican baa loo galaa hotelkii waa meeshu ku jiray godku ku jira loogu daad waxa rabay waagaas haduu bariyo Muqdisho in isla kacdo macnaha baarlamaanka dagaal ka dhaco inta calooshood shaqaystayaal niman iimaan laawayaal lacag la loo qaybiyo hub la siiyo in saaka caloolacad ay ka dhacdo baarlamaanka in lagu kala baxo la isku ololiyo meedka iyo dhaawac isfuufulaan rabay ilaahay baa sid waxa uu ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyay musiibada dad baas oo bila aqliya oo bila damiir hadoo loo raato laahay ka cadaarood bala laayay way soo fariisan lahaa maxaan idin sheegay xasan weyne nacbiyay haweeneyna ma arki karo waxa la rabay in la istaaro guul baas ka dhacday ilaahay baa mahadda iska leh ka sokowna taliyaha ciidanka booliska Asad Cismaan Diyaano thank you balana tuuga caloosha weyn ee nacaska bila aqliga meesha ma qarnaad u haystaa meesha iyagalka iyo garowe magaalooyinka dadku dhibaataynayay عشان عاصمة الصومالية وي برتها لقطة ولا لقطة فليا هذا إذا ضررته هذا اللي أنت تعبيسها سيف في عم اللي أنت وعبيسها محكمتنا الجوجينية ونحن ما يسمحوها نكي هيسجل محكمة شوتها الجوجينية أرجع كحسها تاي دالين باتاي إيمان لا وادنا تاي والبرنامج كسدود سوق على سي شركة نية يشاركت الأسن يقبيارد ماشى الله